shirka jaraa'idaynu qabanay waxay ujeedadiisu daaran tahay arrin aanu shalayto ka hadalnay oo nabadgelyada ku saabsan oo sidii aanu uga hadalnay aan loo fulinin shalayto 17 bisha November 2019 gudoomiyaha xisbiga wadani wuxuu ummadda reer Hargeysa ugu baaqay inay dadka taageerayaashiisa ama ummadda reer Somaliland taageerayaashiisa gaar ahaan ay isugu yimaadaan meel goob fagaara taas anagoo fahmayna waxa ka dhalan kara maadaama nabadgelyada mas'uul ka nahay oo dad muddo la hadlayay oo laga dhaadhicinay sharci darra jirta marka la isugu yeedho waxa ka dhalan kara oo aanu waayo arag ku nahay waxa ka dhalan kara oo aanu fahmi karaynay dadka waanu la hadalay waxaanu ku niri ummaddu ay isu imanay anagoo mas'uuliyadda nabadgelyada ay farayso waxa la isugu iman karaa sharcigana aanu ku dhaqmayno waxa la isugu iman karaa qurina ay tahay mudaharaad marka la sameeyo ama ummadi abaabul sameynayso in sharci ummad baynu nahay qarana in sharci loo soo samaysto tii saaka markuu ay tahay 8 barkii gudoomiyaha xisbigu isagoo ummad badan wata ayuu yimi goobtii ciidankii boolisku markay la hadleen ilaahan ka joogso meesha iyo waxa sameyn wuu diiday gacmaha isqabsadeen ummadii oo dhan intuu yeedhay gacmaha qabsaday ayuu isagu mudaharaadkii bilaabay inta gacmaha isqabsadeen saf ballaaran galeen oo ummadii oo dhan ay gacmaha soo wada qabsadeen ayuu isagu mudaharaadkii bilaabay askartii bay jeeday askartii iyadoo dhowraysa oo la hadlaysa ayaa xabad rasaas waxa riday nin isaga la socda oo askariya oo kuwii ciidamada qaranku ay u siiyeen inuu amaankiisa ilaaliyo lagu sharfaya ayaa rasaas bilaabay taliyihii qaybta bariga goobta joogay toogtay markhaatiyaal bay leedahay waa wax cad sidaas dabadna gudii ku gala sigay dadkiisa iyadoo sharciga la dhowrayo askartii faraha badida meesha joogtay uma jawaabin oo ninka wax talaaba iyo rasaastoona uma jawaabin waa garanaynaa magaciisa waa lala xisaabtami doona waxaan markaa u sheegayaa cid kasta oo nabadgelyada danaysa iyo ummadda reer Somaliland wixii saaka halka ka dhacay waxa jira askari kale oo dhaawaca oo dhagax lala dhacay oo groupkaasi la socday la dhacay oo aan talaabo qaadin oo imika dhakhtarka yaala wixii nabadgelyada darro ku saabsan ee saaka halka ka dhacay aanu ka digna shalayto ee rasaasta dhacdaya ee askarta wax lagu dhuftaya ee buuqa halka ka dhacaya waxa ka mas'uula gudoomiyaha xisbiga isagaana ka jawaabi doona waxaan mar labaad waxa kaloo ku baaqay imika sidii aynu wada ogsoonay saxaafadda ka baxday inuu 3 cisho hawshaas sii wadi doono waxaan u sheegaynaa isaga iyo cidda kale la socotay hawsha wadaba inaanay arrintaas u dhacay sidii saako kale mar dambe aanay u dhacay anaguna aanayeen waayo nabadgelyadaanu mas'uul ka nahay ummadda halka nabadda ku nool ee raaxaysanaysa ayaanu mas'uul ka nabadgelyadooda mas'uul ilaahay baa mas'uuliyadda haya annaga ilaahay nagu ogiyay mas'uuliyadda annaga hayna shaqadeedana cidna uga haybaysan mayno cid kasta oo nabadgelyo darrada ka sameysana imika waan ogna waa noo qoranta waana la daba socdaa cid kasta oo sameysana waa talaaba laga qaadi doona waxaan u sheegayaa ummadda reer Somaliland inay nabadgelyada ilaashadaan sharciga dhowraan adeegsigan iyo isu soo baxan ay iska daayaan adan inankaaga aad iskuulka u dirtay iyo gabadhaada aad biilka u diratay goobtan yitay dhibaata dhacaysa looma baahna waayo mudaharaad aan sharciyeysnayn ma yeerino shalina waan sheegay taa
waxaan ballan qaadaynaa dadka nabadda jecel ee ummadda aanu mas-uuliyadda u hayneen nabadgelyada mas-uul ka nahay inaanu cid kasta oo nabadgelya darre dhexdooda ka wada ka safayn doono aanan ula dul qaadanayn. asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. tali hal su'aal haddaan ku weydiiyo kala xidhiidha tusaale ahaan xalay waxaa la xidhay xogayihii iyo afhayeenkii waan soo wadnaa isku qadar ka tegdayna haye marka taliya maadaama idinku imika leedihiin sharcigii ha ilaaliyo hoggaanka xisbiga waddani miyaana xaggiinana ahayn inaad sharciga idinkuna ilaalisaan oo tusaale ahaan nimankaasi maxay faldambiyeed ku xidhayn mas-uuliyiintii guddoomiye waxay ku xidhan yihiin sharcigaanu ilaalinaynaa cid kasta oo abaabul iyo kharbudaad wada nabadgelyo darre dalkan ka wada xasaanad male waa fala garansi dembigiibu ku jiraa inanka afhayeenkii daami intuu isdhex taago muusano sameeyo dadkii o dhan isugu yaadhay uu ihi ka kaca sharci waddankan kama jiro wuu sii waday hargeysa o dhan buu ku wareegay xeradeedan dabadeedu yimi oo oon caddaynaya xerada dabadeedu waxa weeye abaabul bilaa sharciga iyo kharbudaad qodob baa haya iyo kharbudaad bilaa sharciga cidda wada boolisku xaq buu u leeyahay inuu qabto moo intuu warqad noo soo qorto sharci samaystaan sababahaasaa lagu qabanaya cid kastoo arrintaa wado nabadgelyada khalkhal gelinaysana waa la qabanaya. taliya waxaad sheegtay in arrinta saaka dhacday ee mudaharaadka isu soo baxa ay sameeyeen taageerayaasha xisbiga waddani ay ahayd jebin amarkii xalay aad soo saarteen la jebiyey isla mar ahaantaasina guddoomiyuhu wixii dhacay iyo dhaawacyadii iyo ciidamada wax soo gaadheen uu ka mas-uul yahay macnahaygu waa maxay uu ka mas-uul yahay maxay tahay tallaabada wuxuu mas-uul ka yahay maxaa laga yeelay wuxuu mas-uul ka yahay isagoo guddoomiye xisbiga ah oo sharci ku ah sharaf ku lahaayo sharafta wuxuu ku leeyahay waa sharciga ayuu isagoo aan sharci qarankii ka qaadan dad isugu yeedho inuu isu soo baxa sug horta wixii bartaa ka dhaca markaa maadaama aanu sharci usoo samaysan isagaa ka mas-uula. markaa taas bal noo faahfaahay ma dacwad baad ka gudbinaysaan maxaad ka yeelaysaan siduu mas-uul uga noqon wax kasto arrin kastoo sharcigu waafaqsan yahay ayaanu ka samaynana. nimanka labada mas-uule haatan xidhan lagu weydiinayay wax hadal ah ay sameeyeen mooyaane dembi dhacay xalay ma jirin marka soo iska xidhisu ma noqonayso dembigu adeer waxa haddaan afxumayno gacani ma timaado dembigu markaan dad soo kiciyo halkaa jooga eedha ka kaca ee aanan sharci ummad inaan abaabulo oon kiciyo aanan sharci u haysan dembiga koobaad weeye macnaheedu waxa weeye dadka u soo kaca iminka maxaa rasaastii saaka keenay soo dad isu soo baxay oo loo yeedhay maaha ummadaasoo aanu sharci u haysan buu soo kicinayo oo abaabulayo uu lahaa ka kaca uu lahaa sharci waddanka kama jiro taa macnaheedu waxa weye waxaad doontaan sameeya markhaatiyaal bay leedahay ciidanka xalay qabtay tayaaradaa la gubaya wax jira weye ninka bilaa sharci wax ku abaabulayena macnaheedu waxa wey waxaad doontaan samey ninku leeyahay afkiisa tahay sharci ma jiro waxa weye waa dembiilaada goobtaan joogay taliyo ciidanka laftigiisu dhowr xabadood bay rideen in dadka isu soo baxay xabada lagu rido ciidanka wax kaloo ay ku xaliyaan miyayna lahayn ciidanku waxa weeyaan xabadii miy ciidan ku dhacday ma aragtay xabadii ciidanku miyaa aragtada ilaa su-aasha weydiinay adigaa su-aasha dib kugu celiyay maya horta xabada ciidan ku dhacday ma aragtay waa su-aal horta shacab ma sideen maya horta xabadu askarigu ciidan ku dhacday ma aragtay xabada lagaga jawaabay miyaa horta ciidan ku dhacday ma aragtay xabadu dhowr goor bay taliyeen hada horta ii jawaab xabadu askarigu horta ciidan ku dhacday ma aragtay maya xabada dhacayay baa sug haddaba askarigu wuxuu mas-uul ka yahay qorigiisa haddii lagu soo doonto ninkii inankii la socday boori gaarka ama kule xabadaa uu bilaabo oo sarkaalka ula dhacay baa taagan askarigu markaa dee joogi maayo uu iskaga celiyay laba mid baa la riday waxna kuma dhufan waanu qaban karayna intaanu qabanno laakiin iyagoo askartu dhowraysa guddoomiyaha inay gacanta ula tagto ayaa loo qaban waaya ninkan